tobanaan kun oo ka mid ah ciidamadii booliiska ayaa la geeyey meesha dagaalku ka socdo. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu haatan uu hogaaminayo ciidamada militariga isla markaana uu tagayo jiidda hore ee dagaalka xilli uu dalkaasi ka socdo dagaalka u dhaxeeya fallaagada Tigray iyo ciidamada dowladda. Laga bilaabo berri oo ula jeeday maanta waxaan tagayaa jiidda hore ee dagaalka aniga oo hogaaminaya ciidamada difaaca, ayuu yiri Mr. Abiy qoraal uu soo dhigay bagga uu ku leeyahay Twitterka. Kuwa doonaya inay ka mid ahaadaan carruurta Itoobiya kuwaas oo ay xusi doonto taariikhda maanta u kaca dalkiina aan ku kulanno furinta hore ee dagaalka, ayuu yiri. Hadalka Abiy Ahmed ayaa imaanaya xilli shalay xabsiga haya xisbiga haya talada Itoobiya uu yeeshay kulan looga hadlayo ammaanka. Abiy Ahmed marka laga soo tago Tigray iyo OLA waxaa weerar ba'an ku haya wadamo caalamka ah gaar ahaan Mareykanka. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay in ay ciidankeeda keeni doonto Addis Ababa maadaama ay aad uga shaki qabto in Tigray ay qabsadaan caasimadda Itoobiya. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in xilligan laga bilaabo go'aanka uu Mareykanka xaggooda xigo. Waxay dafirtay dhammaanba dowladnimadii Itoobiya. Dagaalku wuu sii xoogaystay. Hadalkii Abiy Ahmed ka soo yeeray dhinaciisa waxaa ka jawaabay Getachew Reda oo ah afhayeenka kooxda TPLF, wuxuuna yiri Abiy hadalkiisu waa habar fadhida lagdan la fudud. Wuxuu ula jeedaa in xilligan uu Abiy afka uun ka doobinayo isaga oo leh aan dagaalano furimaha hore ee dagaalkeena geeya. Halka sidoo kale sawirkan aad aragtaanna uu macno kale u yeelaya dagaalka Itoobiya ka socda, maadaama November-tii la soo dhaafay ee 2020 Abiy ahaa geesiga libaaxa hogaaminaya dagaalka, balse markan Tigray ay iyaguna noqdeen geesigii bursatay libaax. Ogow, libaax macnaha uu leeyahay libaax sida uu xayawaanada kala boqorka ugu yahay, iyo sawirka aad aragtaan oo ah libaax geesigii duurjoogta oo gisi mid ka mid ah xayawaanada inta badan libaaxa uu xitaa quuto ay iyadii bursanayso. Haddaba Tigray ayaa awoodoodii laba jibaarantay. xagee bay awooddaas haddii laba jibaarantay ka keeneen? Dagaalkaas maxaa sii xoojiyey? Yay tahay cidda garabka qarsoon siinaysa kooxda TPLF? maxayse xilligan awooddoodii dagaal sidaan ugu korortay? kulankii ay shalay yeesheen xisbiga talada haya ee waddanka Itoobiya ayay uga hadleen qodobo dhowr ah. Kadib kulanka, wasiirka gaashaandhigga ee waddankaas ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in laamaha amniga ay haatan qaadayaan howlgal ka duwan kii hore oo lagu joojinayo colaadda kadib markii dagaalamayaasha jabhadda xoreynta Tigray ee TPLF ay ku siqeen wadooyinka ka yimaada waqooyiga ee soo gala Addis. Xisbiga ayaa waxa ay sheegeen inay xilligan xaaladdu cakiran tahay, xiisaduna cirka isku shareertay. Mareykanka ayaa soo saaray baaq daadguraynta muwaadiniintiisa ah, waxaana ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna codsaday in ciidamo dheeraad ah loo qoro. Maamulka Addis Ababa ayaa ugu baaqay dadka inay isdiiwaan geliyaan oo ay hubkoodana diiwaan geliyaan. Jabhad kale oo gacan saar la leh TPLF ayaa sheegtay inay sidoo kale ku sii dhawaanayaan caasimadda. Ergeyga Midowga Afrika ee gobolka ahna madaxweynihii hore ee waddanka Nigeria Obasanjo wuxuu sheegay inay jirto fursad